بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضا يا أصحاب كحرا كان الكبر اللوقات أكاديمي حانو إذن لأن حي اسكسو نقط وعن أو نكسن ميرو البقى الدنيا تعالى سكت جوكتان runtii channelka in dhawaala wax cashar ma aynan soo gelin mashquulo inaga inay haystay aawadi balse hadda waa aanu soo laabanay ardayda iyo asxaabta horay ee uga mid ahayd channelka inta aanu maqneenna ina sugaysay waxaanu idinkaga mahadcelinaynaa dulqaadkii aad inoo muujiseen intaanu ka maqneen channelka balse ardayda cusub ee channelka rabta inay ku soo biirto waxaan leenahay welcome to the open hands ku soo dhawaada gacmo furan si aad uga mid tahay saaxiibada iyo ardayda ku xiran channelka fadlan taawa calaamadda guduudka ay subscribe badhanka sidoo kalena gambaleelka furo si muuqaal walibaahi aynu soo dhigno oo kugu soo dhaco runtii maanta waxaanu qaadan doonaa cashar aad u xiiso badan ciwaanka casharka iyaga waxa weeyaan waa topic about language mawduuc ku saabsan luqadda topic about language mawduuc ku saabsan luqadda ayaynu qaadanaynaa muuqaalka dhamaysto la garee wixii talo iyo tusaalahan qaybta hoose ee muuqaalka inoogu reeb ee commentiska waa hagaag markanna waxaynu gudagalaynaa casharkeenna language is system of human expression by using of connected words which are intended to communicate people with one another language is system luqaddu waa hab of human expression luqaddu waa hab ay dadku wax ku qeexaan language is system of human expression luqaddu waa hab oo ay dadku wax ku qeexaan by using of iyagoo isticmaalaya connected words erayo isku xiran which are intended to kuwaasoo loola jeedo ama loogu talagalay to communicate si ay ugu wada xiriiraan people dadka with one another midba mid kale luqaddu waa hab ay dadku wax ku qeexaan iyagoo isticmaalaya erayo isku xiran taasoo loola jeedo in ay dadku ku wada xiriiraan taa ayaa waxaa loo yaqaanaa luqad when you are learning language markii aad baranayso luqad when you are learning language markii aad baranayso luqad adiga what gets the first priority muhiimadda koowaad waxaa leh ama waxaa iska leh waxa muhiimadda koowaad leh waa ku dhawaaqista yacni is the correct pronunciation of the language waa ku dhawaaqista saxda ah ee luqadda when you are learning language markii aad baranayso luqad what gets the first priority waxa muhiimadda koowaad leh is the correct pronunciation of the language ku dhawaaqista saxda ah ee luqadda weeye if you pronounce English words haddii aad ku dhawaaqdo erayada Ingiriiska properly weliba si toos ah if you pronounce English words properly haddii aad ku dhawaaqdo erayada Ingiriiska si toos ah you may learn excellent and understandable language waxaad baran kartaa luqad sax ah oo la fahmi karo you may learn excellent and understandable language waxaad baran kartaa luqad sax ah oona la fahmi karo if you pronounce English words incorrectly haddii aad ugu dhawaaqdo erayada Ingiriiska si aan sax ahayn if you pronounce English words haddii aad ugu dhawaaqdo erayada Ingiriiska incorrectly si aan sax ahayn you may learn poor and broken language waxaa dhici karta in aad barato luqad xun oo misna jajaban you may learn poor and broken language waxaa dhici karta in aad barato luqad xun oo misna jajaban broken waa jajaban poorna waa yacni ereyga poor waa faqri ama faqiir balse hadda waxay ugu jirtaa luqad xun yacni poor hadda xun bay ugu jirtaa waa hagaag which nobody can understand taasoo qofna uuna fahmi karin which nobody can understand
taasoo aanu qofna fahmi karin. waa hagaag asxaabta iyo ardada ku xiran channelka casharkeennii ama toobigeenii halkaa ayuu inoogu egyaha. balse muhiimadda ayaa ah in erayada luuqadda ku jira ama toobigan erayada aad faa'iiday aad qaybta commentiga inoogu reebtid. casharka sida uu kula ahaana aad commentiga inooga soo reebtid fikradaada, hadduu cashar aad u xiiso badan ahaa iyo haddaanu toobigyada aanu ka weecanno aan u weecanayno dhanka iyo maxaan ku yidhahdaaye wada sheekaysiga. hadba meesha markaa commentiskiinu u bato ayaanu annagana xoogga saari doonnaa. waa tahay waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo. waan idin salaamaynaa meel walba aad joogtaan. guulaysta asxaabta iyo ardada ku xiran channelka Baro Luuqadda Academy. Assalaamu calaykum.